dhiiggii jirkiisa ka daatay baa saxaabigii agtiisa hurday qoyaankiisii dhiiggii uu gaaray markaasuu toosay ninkanoo taagan yaqra'u alqur'aan yusallii qiyaamu leyl buu tukanayaa dhiigguna waa ka daadanaya 3 falaaroodna waa ku dhacday uu taagan yahay ma ujeedaa maxaad ii kicin weyd markaasuu yidhi aayad baan marayay oo salaada aan ku jiray aayadda macaankeeda inaan kala gooyaan wuxuu nin cibaado badan masaajidka loogama soo horreyn jirin salaada subax oo kale rag salafkii ka mid ah waxay yidhaahdeen waxaanu isnidhi ka soo hormara waxaanu aragnaa isagoo fadhiya salaada marka laga baxo ninkaasoo loo imanayo wax la weydiinayo ilka cadcad war ninkani muxuu ahaa miyaydinaan garanayn mucaad ibnu jabal wey radia allahu tacala canhu waardaa afkaa hadduu kala qaado inkaaraha ka soo baxaya balayn kari maysid xanta wax isku dirka balaayada masaajidkan safka hore ku jiraa xandala saxaabiga la yidhaahdo wuxuu yidhi kunnaa cinda rasuuli llahi sal allahu alayh wasalam fadakarna aljanna rasuulka agtiisaanu joognaa mararka qaarkood calayhi salatu wasalaam agtiisa kuwa joogaanu ahaanaa mararka qaarkood fadakarna aljannata wannaar waxaanu soo hadal qaadnaa jannada iyo naarta iyo baa laga sheekeeyaa xataa kaannaa ra'ya alcayn sidii annagoo indhaha ku hayna oo kale sida annagoo indhaha ku hayna oo kale fi saxiix aljaamic asagiir waxaa ku sugan xadiidka mucaad ibnu jabal aradtu safaran safar baan damcay inaan aado faqultu yaa rasuula allahi awsini markaasaan rasuulka ilaahay oo ii dardaaran rasuulku wuxuu yidhi ucbud illaah laa tushrik bihi shay-an ilaahay caabudoo shirki ha u samaynin wacmal lilaahi kaannaka taraah u camal falo alla dartii sidii ilaahay aduu arkaya oo kale subxaanahu wa tacaala abidarda radi allahu tacala canhu xadiidka ibnu casaakir iyo tabaraani ay wariyeen sheekhu albani saxiixada uu ku keenayo rasuulku abuu la hadlayaa abidarda ucbud illaaha kaannaka taraah ilaahay caabud sida adigoo arkaya oo kale wacud nafsaka min almawta naftaada ku xisaabi kuwa dhintay ku xisaabi wa iyaaka wa dacwati almadluum adiga iyo waxaan idiin kala digayaa iska jir qofka la dulmiye habaarkiisa cid ha dulminiyo ku habaarine fa innahu mujaabaatun ducadiisa kaasi uu ilaahay baryo waa mid la ajiibayo wa calayka bisalaati alghadaat wa salaati alcishaa salaadaha ku dadaal gaar ahaan subaxa iyo cishaha ku dadaal fashhadhumaa labadaa salaadood xaadir meesha lagu tukanayo falow taclamuuna maa fiihima la ataytumuuhumaa walow xabwa haddii aad og tihiin waxa ku jira khayra salaadaha gaar ahaan subaxa iyo cishaha idinkoo gurguuranaya haddaad socod xitaa awoodi kari weydaan ayaad imanaysaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal isagoo wiil yaru dhintay daacuun alcamwaas dhallinyaru ahaa muku dhimanayay sanadkii 18 hijriga taqriiban markii uu dhimanayay subaxii ka hor salaad subax ka hor buu xanuunka daacuunkaasa ku dhacay aad buu u tabcaanay unduruu hal asbaxa asabaax darkiisi la joogo bal fiiriya waagu weli ma bariyey qaaluu laa bacdu maya weli waagii ma baryin xogaa buu jooga haddana unduruu hal asbaxa asabaax war bal eega waagii ma bariyey salaaddii subax ma dhalatay weli maya weli salaaddii subax ma dhalan markaasuu isoo fadhiisiya buu yidhi usoo fadhiistay ilaahu waad ii og tahay inaan kuu soomi jiray maalintuu qorraxdu ay kulushahay oo haraadka iyo qorraxdu say tahay aad og tahay inaan kuu soomi jiray cabsi aan kaa cabsanaya waad ii og tahay inaan ilaahow salaada faralka ilaalin jiray jamaca masaajidka waad ii og tahay ilaahayow inaan habeenkii qabowga oo jira intaan weysaysto cid i arkaysa aanay jirin aan adiga kuu istaagi jiray salaada salaatuleylka dhaxanta aan qarqarayo oo saa u gariirayo ilaahu waad ii og tahay ilaahu inaan cilmiga iyo culimada iyo khayrka jeclaa oo goobaha lagu hayo aan fadhiisan jiray faa'iidayn jiro oo ka faa'iidaysan jiray waad og tahay maanta waad i aragtaa xaalkayga ilaahayow inaan sariir saarnahay xaalkaygu culusiyay waad ii jeedaa allaahuma innii acuudu bika min laylatin sabaaxuhaa ila annaar ilaahu waxaan kaa migan gelayaa habeennimada aan waagu salaaddii subax weli la gaarin inaan dhinto kabacdina naar godkayga la ii xareeyo ahlu naar aan noqda ilaahu kaa migan gelaya wuxuu nin cibaado badan masaajidka loogama soo horreyn jirin salaada subax oo kale rag salafkii ka mid ah waxay yidhaahdeen waxaanu isnidhi ka soo hormara waxaanu aragnaa isagoo fadhiya salaada marka laga baxo ninkaasoo loo imanayo wax la weydiinayo ilka cadcad war ninkani muxuu ahaa miyaydinaan garanayn mucaad ibnu jabal wey radia allahu tacala canhu waardaa saasay ahaayeen dad adduunyada micna u arkaynin cibaadada ilaahay macaansanaya subxaanahu wa tacaala
xadiidka abi daa'uud nin saxaabada ka mid ah rasuulku intuu duulaan qaaday jihaad u baxay ayaa ay qolo gaala ahba rasuulkii weerareen saxaabadiisii qoladii waa la jebiyey sabyi iyo qafaalna waa laga soo kaxeeyey meeshii qoladuu deganayd ka sokaysaa ciidanku degay rasuulku rabo inuu ka guuro calayhi salaatu wasalaam nin ka mida gaaladii colkii meeshii la galay oo ka maqnaa goobta markaa dagaalku ka dhacay ayaa ka soo dababaxay ciidankii muslimiinta dabeetana goor habeen barhkii ah niskii dambe oo saxaabadii maxaanku idhaha ay degeen meel oo waardiyihii la qabtay oo laba nini waardiyihii ku qorantay ninna markaa uu waardiyihii saaran yahay ninna uu hurdo ayaa kii waardiyaha saarnaa salaatuleyl xidhay kii gaalkaa waa soo dhuuntay fallaadh buu ku dhuftay dhag ninkiioo salaaddii ku jira salaaddii buu ku jiraa salaaddii fallaadhii ku dhacday macaanka cibaadada ilaahay uu hor taagan yahay fallaadha ku dhacday salaadda uu ku jiriya qur-aanka uga sii macaanaaday mid kaluu ku dhuftay haddana mid kaluu ku dhuftay dhiiggii jidhkiisa ka daatay baa saxaabigii agtiisa hurday qoyaankiisii dhiiggii uu gaaray markaasuu toosay ninkanoo taagan yaqra'u alqur'aan yusallii qiyaamuleyl buu tukanayaa dhiigguna waa ka daadanayaa 3 fallaaroodna waa ku dhacday uu taagan yahay ma ujeeddaa maxaad ii kicin weyd markaasuu yidhi aayad baan marayay oo salaadda aan ku jiray aayadda macaankeeda inaan kala gooyaan diidayay buu dad waxay ahaayeen dareemaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inay hor taagan yihiin sida rabbigood inay arkayaan oo kale alla u caabudaya subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa xadiid saxiix ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu saxaabigaa la dardaarmayo alxaafid ibnu lxajar raximah allahu tacala fatxulbaariga wuxuu leeyahay salaadaha cishaha iyo fajarka waxaa rasuulku si gaara ugu tilmaamaya waxaa ku jira 2 qodob oo qofka jeclaysiinaya inaanu xaadirin baa ku jira qodobka koowaadi waxa weeye buu yidhi maalintii oo dhan baa la ordayaayo cishaha qofku waa xilli uu rabo inuu iska nasto oo meeshii uu fadhiisto aanu ka kicin oo iska seexdo uu rabo salaada subaxna hurdadaa macaan xilligaas hurdada ayaa xilligaa macaan waxaa ka mid ah axaadiidta yaabka leh ee rasuulku mucaad ibnu jabal radia allahu tacala canhu fi saxiix targhiib wa tarhiib imaam almundiri uu ku keenayo xadiiska camr ibn alcaas cabdillahi bn camr ibn alcaas safar baan doonay inaan aado buu yidhi mucaad waa riwaayadka xadiidka yaa rasuula allahi awsini ii dardaaran rasuulkii ilaahayo rasuulku muxuu ku yidhi qaala ucbud illaah ilaahay caabud walaa tushrik bihi shay-an shirki allah ha u samaynin qaala yaa rasuula allahi zidnii ilaahay rasuulkiisiyo ii ziyaadi dardaaranka iigu dar qaala idaa asa'ta fa axsin markaad xumaan samayso wanaagna samee walyaxsun khuluquka akhlaaqdaadu ha wanaagsanaato iyo dhaqankaagu ha wanaagsanaado rasuulku leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayadka xadiidka waxaa ka mid a riwaayadda imaam targhiib wa tarhiibka mundiri ku keenayo ee darajadeedu xasanka tahay ayaa wuxuu leey yaa rasuula allahi awsini waa riwaayadka xadiidka mucaad ii dardaaran qaala ucbud illaaha kaannaka taraah ilaahay caabud sida adoo arkaya oo kale wacdud nafsaka fi lmawta naftaada ku xisaabi oo ku tiri kuwa dhintay wain shi'ta anba'tuka bima huwa amlaku bika min hada kulli haddaad doonto waxaan kuu sheegayaa inta aan kuu sheegay mid ka mudan inaad ilaaliso oo xafido oo maxaan ku idhaahdaa ka hawl badan baan kuu sheegayaa haadaa carabkaagan ogow wa ashaara biyadihi ilaa lisaani carabkaaga ka adkow carabkaagaas ka adkow soomaalidu waxay tidhahdaa isumajeeda islaan laayi qof baa isagu qof kastuu wax ka sheegaya waa maagaya waxbuu ka sheegaya kan waa kan waa kan isaga soo maaha cibka saliim waxba ma laha ummaddiina afkaasuu ku baabi'iyey sidaa awgeed baa muslimkii waa 2 qayboodoo waa qof muslim ah ila rasuulku markuu leeyahay almuslim man salima almuslimuuna min yadihi wa lisaanihi muslimka dhabtay waa qofka afkiisa iyo adinkiisa ummaddu ka nabadgalaan mid baa jira muslim ah oo muslimiintii ka mid ah oo cibaadaysanaya oo maxaan ku idhaahdaa afkiisaas qof bani aadama waxba ma yeelayo laakiin gacantuu balaayo ka qabaa dilka feerka usha dhaca balaayada gacantaas ummadda kow kaga siiya midna gacanta waxba kama samaynaya afkuu ka felaya naar afuuf waa naar afuuf afkaa hadduu kala qaado inkaaraha ka soo baxaya malayn kari maysid xanta wax isku dirka balaayada masaajidkan safka hore ku jiraa hadduu soo baxana idaacaddiisuu shidanaya anteenadiisaa u taagan ummadaasoo dhan buu soo wada qabanaya networkooda markaasuu mid walba maxaan ku idhaahdaa tacliiq ka sii daynaya
kan saas weeye kan caynkan weeye kan caynkan weeye marka qofkaasi isagaa og meeshuu ku dambaynay cibaadadii ilaahay ka reebay oo ka mashquulayba waa ka mashquulay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah axaadiista uu mucaad riwaayaadkiisa aan soo ururiyey yaa rasuula allahi awsini ii dardaan rasuulka ilaahayo qaala ucbud illaaha walaa tushrik bihi shay'a alla caabudoo shirki ha u samaynin وأقم الصلاة صلاة أوك وآتي الزكاة زكاة بحي وصم رمضان تصون وحج البيت بيتك حجي واعتمر عمريسو واسمع وأطع مقل أو تلدي سقاضو منك كحكم أميرك وعليك بالعلانية وإياك والسر وحي كاغم ضدك ظاهر كودا كل معامل لكن ضدك وحي قلبي كودا كتير مو أجده تهمك يوسواسك يظنك إسكا إلالي تهمك يوسواسك يظنك إسكا إلالي حديث كاس عبد الله بن عمر باصوص باوريي الشيخ الباني وحول درجة سوى حسن سلسلة كوكينية سلسلة الحديث الصحيحة أي حديث كاس كوكينية سيدا أوجد وحين والله لا يلوبها النهي قفك مسلم كاهي إنه ربي يعابد سيدي إسقو أركي أوكل لينك لي هذا الصحابي عبد الله بن عمر oo tawaafaya kacbada ayaa tawaafkii waxay ku kulmeen sida Abu Nu'aym al-Asbahani Hilyatul Awliya ku keenayo waxay ku kulmeen tawaafkii Urwa iyagoo tawaafkii ku jira ayuu wuxuu ku yiri Urwa Abdullah ibn Umar gabadhaada ina isiisaan raba lam yujibhu bi shay'in waxba ugu ma jawaabin ثم رآه بعد ذلك كدب مردن بو أركي وضوافكيسي وحيسي دمايستي يا مساجك دبدس الله يسكو أرك فاعتذر إليه وأعذر دارت إقرأ لي أهو مركي دويد أدي لها الليسين كو شوابي وكو مقلي كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا طواف كانوا كتشرني وحانو دريميني إلهي إنو النهر تاقيه سبحانه وتعالى ثاسا مركا واحد كهال ليسين كتشوابه aanan u jeedin tawaafkaasaan ku jiray marka ilaahay inuu i hor taagan yahay baa ii muuqanaysay oon dareenkaasaan watay iminkay wixii ka dambeeyay un baan kaaga jawaabaya wuxuu oran jiray ibnulqayim raximahullah kutubtiisa qalbiga la hadasha inta badan fawaa'id iyo miftax daar sacaada iyo daar saalikiinka iyo man ta'ammala xawla axwaal asaxaaba qofka u fiirsada buu yidhi saxaabada xaaladahoodii radiyallahu canhum وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف وحقف كاسي هلا يا يوغانيا إن أي عمل فشان ماشي قدام بيسي أودو ده يددال ماشي قدام بيني عمل فلانشرين يقوى عبسيدة قدام بيسي بني آدم وعبصده إلهي كعبصني سبحانه وتعالى ونحن جمعنا بين التقصير أنك وحانو كل منا يمكن عبادي سنين بين التفريط والأمن بوير inaanu cibaadadiina la ka reebayna gaabis ku nahay iyo gabood fal haddana aanu aamin iska qabno oo sida inaan wax shidaba aanay jirin inaan aamin qabno oo kale